كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشر كيس قالات barnaamijkeennii barbaarinta ubadka. maanta waxa aynu ku soo qaadan doonaa hal qodobkaasi waxa weeye azawaaju walmusaahara, yacni guurka iyo xididka faa'iidooyinkii ay markaa leeyihiin. waxaan jeclahay mar kastaba inaynu markaa si fiican u wada soconno. 8 xalqadood ama 8 casharee hore waxay markaa ahaayeen hordhac ama markaa muqadamo ee ka horeeya markaa barbaarinta iyo korinta ubadka, ama aynu oran karno waa 8 qodoba waxay ahaayeen qofka looga baahan yahay intaanu markaa guursanin ama markaa hadduu guursadoba uu ku sifoobo. markaa 8 cashar aynu soo qaadanay, waxyaabaha aynu ku soo qaadanay waxaa ka mid ahaa yacni mas-uuliyadda tarbiyada inay waalidka horta dareemaan. 2 waxaynu ku soo qaadanay waa maxay ninku inuu markaa gabadh wanaagsan doorto. ka 3 waxaynu ku soo qaadanay casharka 3 waxa uu ahaa ahdaafu zawaaj, hadda guurka markaa ahdaafta loo dejiyey ama hadafka guurku muxuu yahay. casharkii 4 iyo kii 5 iyo kii 6 waxaynu ku soo qaadanay sifooyinka waalidka looga baahan yahay. casharkii 7 waxaynu ku soo qaadanay awlaadu markaa inay tahay quruxda markaa adduunka. casharkii u dambeeyana wuxuu ahaa dagaalka uu kula jiro shaydaanku dadka iyo ubadkaba. marka intaasi waxay noo ahaayeen hordhac iyo muqadamo guud oo qofku loo baahan yahay intaa inuu mar kasta maskaxda iyo maankiisa uu ku hayo. haddaba waxaynu gudagelaynaa si markaa ubadkii aynu barnaamijkii barbaarinta toos ugu bilaabano. waa inaan marka hore aynu ka bilowno dee guurka faa'iidooyinka uu leeyahay iyo xididka dadka wada xididaya faa'iidooyinka ay markaa leeyihiin. haddaba nimcada guurku waa nimco markaa rabbaaniya oo ilaahay markaa dadka uu siiyo, waana sunnadii markaa dhammaan rususha oo dhan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala yacni si markaa nolosha bini aadamku ay u socoto oo markaa joogto ay u noqoto, waxa uu markaa u sameeyey oo ugu talagalay yacni guurka ka dhaxeeya qof lab iyo qof markaa dhadig ah. ilaahay waxa uu leeyahay wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaaja, yacni ilaahay waa ka markaa waa maxay idiin abuuray oo markaa waa maxay idiin sameeyey nafihiina markaa oo idiin doore waa maxay aswaajan markaa ooriyo markaa ama xaasas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa markaa nimcadiisa ka mid ah inuu ragga ilaahay u abuuray oo uu sameeyey yacni dumar markaa la jinsi ah ama dumar markaa iyaga la dee insigii la ah oo markaa la jinsi ah oo markaa waxba aan kaga duwanayn. waa nimco markaa ilaahay markaa uu bixiyo. sidoo kale waa maxay bani aadamka ilaahay raxmadda uu siiyey waxaa ka mid ah inuu markaa u abuuray uu ka dhigay lab, qaarna uu ka dhigay markaa dhadig. isla markaana waa maxay raggii uu markaa xaas uga dhigay markaa dumarka. taasina waxay ka mid tahay nimcada ilaahay. marka muxuu leeyahay ilaahay min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada. haddaba waa maxay ubadka aswaajta ilaahay uu siiyey waxa markaa ka farcamaya oo aad ka helaysaan waa maxay baniina waxafada. baniina markaa waa inamo iyo waxafadatan kuwa marka awow a u tihiin. xafada waxa markaa la khaadimka marka ama xifaadku waa yani qofka adeegaya marka hadhow markaa idinkii marxaladda markaa guurka a soo dhaaftaan oo ubad ilaahay idi siiyo oo aa weynaataan, yani ubad yarar baa hadhow tolheeda waa maxay idinku awow iyo marka ay u noqotaan hadhow markaa idinka idii khidmayo idii adeega marka. ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale dadka waxa uu u jiheeyey bal hadda inay markaa ka fekeraan
oo ay markaa u fiirsadaan bal nimcada guurka ee markaa muuqata, oo ay markaa ogaadaan yacni guurku inuu yahay marka aayad ka mida aayadaha ilaahay ee dhulka markaa ku dhex sugan. isla markaana waa maxay dadkuna markaa ilaahay markaa ay ka baryaan oo ilaahay markaa ay ka dalbaan inuu markaa u fududeeyo yacni nimcadaa marka ayna qiraan oo ay rumeeyaan ilaahay nimcadaa uu siiyey. ayaa ilaahay waxa uu leeyahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma. ilaahay wuxuu leeyahy waa maxay waxaan markaa idiin abuurnay waa maxay nafihiina markaa kuwa markaa aswaajan idii ah oo markaa xaasas idii ah. marka xaasaska ilaahay wuxuu u sameeyey oo ilaahay ragga waa maxay ugu abuuray litaskunuu ilayha si markaa ugu xasishaan oo markaa ugu degtaan, wajacala baynakum mawaddatan waraxma. ilaahay markaa labada qof ee markaa isqabana waxa uu markaa dhex dhigay yacni jacayl iyo kalkacayl iyo markaa naxariis iyo raxmad. haddaba intaasi waa faa'iidada marka aan ku dhaafi karno guurka. dhinaca kale waxaa iyaduna jirta faa'iido marka aada u cajiib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qadaray markaa dadka markaa basharka dhexdooda uun markaa loo baahan yahay dadku markaa inay ilaaliyaan si markaa ubadkii markaa ay u koraan oo ubadkii markaa ay u socdaan, isla markaana markaa jacaylkii iyo markaa wanaaggii bani aadamkana aanu u istaagin. arrintaasina waxa weeye yacni xididka weeye marka, ama dadka markaa waa maxay labada qof markay isu imanayaan dad badan baa meesha waa maxay markaa imanaya iyo faamiliye fara badan. ilaahay taa isagoo ka warramaya waxa uu leeyahay wa huwa aladii khalaqa min almaa'i bashara fajacalahu nasaban wa sihra. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maxay waa ka dadka ka abuuray markaa waa maxay min almaa'i biyo ayuu markaa ilahay dad ka abuuray, nudfatan buu ka abuuray, fajacalahu nasaban wa sihra. kadibna waa maxay ilahay wuxuu u kala sameeyey oo uu ka dhigay kuwa markaa waa maxay tol ah iyo xidida marka. ibnu kathiir waxa uu leeyahay yacni insaanku marxaladaha uu maro ayaa waxa ay ka soo bilaamaysaa marxaladda ugu hooseysa ee markaa daciif isagoo ah ayuu markaa ilaahay waa maxay uu simay oo markaa uu toosiyey, kadibna waa maxay markaa uu abuuray ama uu ka dhigay markaa lab ama uu ka dhigay markaa mid markaa dhadig siduu markaa ilaahay doono. intaa kadib fajacalahu nasaban wa sihra. qofku markii hore keligii buu ahaa, welad buu ahaa ama ilmuu ahaa, kadib wuu soo koray, guurkii buu soo gaadhay markaa marxaladiisii. guurkii markaa markuu marxaladiisii uu soo gaadhay haddana waxa ugu sii xigta markaa meeshii xididkii markaa inay yimaadaan. kadib ugu dambeynta waa maxay meesha waxaa imanaya qaraabo iyo qoys badan, xidid iyo xigaal badan iyo dad aada u fara badan ayaa meeshii waa maxay ka tafiirmaya oo ka dhalanaya marka. dhammaantoodna ilaahay wuxuu ka abuuray min maa-in mahiin, biyaha markaa daciifka ah ayuu dhammaantood ilaahay ka sameeyey. ilaahay haddi wuxuu kusoo gabagabeeyey wa kaana rabbuka qadiira, yani ilahay waa maxay kaa isaga awoodo marka awood u leh marka halkaa waxa aynu ku arkaynaa waa maxay faa'iidada markaa guurku ay leedahay. ilaahay markaa waa maxay inuu rabo waa maxay nolosha bani aadamku inay markaa ku socoto oo aanay ku istaaginin, isla markaana waa maxay dadkii meeshii ay maxay jacaylkii markaa u yimaado, wanaaggii meesha u yimaado, naxariistii marka ay timaado, ubad badan meeshii marka ay yimaadaan. isla markaana waa maxay waxa iyaduna taa kusii lamaan dee qofkii waa maxay xidid badan iyo dad badan waa maxay ayuu markaa kusoo biiraya oo kusoo kordhaya. marka labadaasiba waa maxay waa laba faa'iido oo aada u muhiimsan oo loo baahan yahay maxay dadku inay dareemaan oo saa marka ay u fahmaan. intaana marka hore ubadka iyo aanay saa u fakerin waa inay guurka faa'iidadiisa iyo xididka markaa faa'iidadiisa ay markaa saa u fahmaan. wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu waaxkam wa ilayhi marjicu walma'aab.